xisbiga mucaaradka wadani oo ay maanta ahayd maalintiisii koowaad ee ololaha doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa maanta degmada Garadaga galbeedka gobolka ku soo bandhigay cududiisa taageero xoog ee uu ku leeyahay degmada Garadaga musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Sanaag uga sharaxan xisbiga rashad iyo shacabka ee wadani injineer Salebaan Diiriye Barre ay weheliyaan musharaxiinta golaha deegaanka ee degmada ayaa taageerayaashooda kumanana kala qayb galay dabaaldega ololaha doorashooyinka isku sidkan sharacyada iyo fagaaraha Garadaga ayaa taageerayaasha musharax injineer Salebaan Diiriye ku soo wareejiyeen iyagoo ku galbinaya lugaha iyo gaadiid waxayna shacabka reer Garadaga taageero cod iyo cudud leh u muujiyeen musharax injineer Salebaan Diiriye Barre iyo musharaxiinta golaha deegaanka dabaaldeg saacado badan qaatay kadib waxay taageerayaasha xisbiga wadani iskugu soo shubteen fagaaraha beerta khayriyada ee gob Garadaga kaasoo lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaq iyadoo ay ugu horeyn hadallada iskaga kala dambeeyeen cuqaalo waxgarad siyaasiyiin iyo aqoon-yahano musharaxiinta golayaasha deegaanka Garadaga ee xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ana musharax u taagan baan egas wasiir dawle Axmed Cali Baynax oo dhamaantoodba tusaaliyay shakhsiyadda wanaagsan ee musharax injineer Salebaan Diiriye baarlamaanka tagaya injineer Salebaan Diiriye Barre anna waxaan leeyahay mabruuq waa lagu doortay Allah ku geeyo inuu soo saarno Salebaan Diiriye Barre waan runtii u qalma aqoonteedana leh ana waxaan musharax ka sharaxan xisbiga ucud sidaa daraadeed waxaan isla qaadanay dhammaan cuqaasha waayeelka waxgaradka iyo dhammaan ehelkaba inaan ka tanaasulo xisbigii ucud aan u tanaasulo Faysal Sahal Maxamuud Cali oo ka sharaxan xisbiga wadani maanta maalin taageerayaashu ka badan yihiin yalka guushu raacaysa ay muuqataa maanta way iska caddahay guul Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa geel durduriye waxaana lagama dhex baadho guushii Garadaga iyo kii degmada inaga leh mada Salebaan haddaan meer ka faaleeyo may horay roobka curtoodaadku milacyeeyay daladaad ka soo magan gashaa milic kaliileede ku mintida Salebaan marba mahadin doontaan aad uga qiirooday degmadii Garadaga oo fariin maanta dirtay degmadii Garadaga oo dareenkeeda muujisay degmadii Garadaga oo waxay tabayso halkan maanta si fariin uga dirtay aad baad mahadsantihiin kulli aniga halkan waxay keenay dareenka dadka iyo gruubka murashaxiinta ee maanta halkan fadhiya ee baarlamaanka iyo golaha deegaanka u sharaxan anigu waxaan sharaxanahay gaar ahaan gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Garadaga waxaan ugu shaqeyn doonaa si sinaan iyo cadaalada taageerayaasheeda xisbiga wadani waxaan leeyahay codkiina kuubsada koobsada kamay oo helin doona fartiina maanta waxaynu muujinay taageeradii wadani oo aynu ka muujinay gobka Garadaga markaan ku yara kaftamo aniga way iga go'ay qaniinkii iyo gafanihii kulmiye way iga go'ay bari hore iga go'ay maraawaydi ka dhaqaaq horeeyay hadeer ma haysto dulingaas bahada lagu taageertayna waxaan leeyahay haydin ka go'o gafaraha iyo qaniinka kulmiye waxba inoo qabanin xaqiiqada sheegay way kulmiye weeyeen ku ridaan kuwii soo saaray weeye kuwa la soo urushay ma amar laga ku xilay maaha kuwa la soo iibsay maaha kuwa soo qabanay maaha kuma jirto duuxiyayaal maaha waa xaqiiqadii weeye
waxaynu isugu soo baxnay oo halkan u nibi inaynu codka siino xildhibaanadeenna oo ugu horeeyo musharax injineer Salabaan Diiriye Barre iyo xildhibaanadeenna sagaalka ee golaha deegaanka oo ay ku jiraan rag hore u soo shaqeeyay iyo rag cusub oo freesha oo doonaya inay wadankooda wax u qabtaan musharax injineer Salabaan Diiriye Barre oo ugu dambeyntii xafladda soo ayaa u mahadnaqay taageerayaasha sidoo kalena ka codsaday inay cod ka siiyaan 31 May guul wadani guul waxaan idinka rajaynayaa maalinta uu yimaado Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirrona inaad sidaas ugu soo bixi doontaan ilaah guusha hayna siiyo Allah guusha hayna siiyo guushu waxay ku jirtaa gacanta Alle waxaan leeyahay maxaa la iga sugayaa waa ballanqaadkiina jawaabtiina way caddahay codkiina waa na siiseen waan idinka mahad celeynaa idinka waxa idinta la wayna loogu ducaysaan in taageerada nala barbar taagantiin aanay idinkeeda ku ciqaabin taageeradaas inaan idinku ciqaabin aanan ku lumin inaan noogu ducaysaan baan idinka rabnaa alla waxaan idinku ballan qaadayaa inaan iskiin barbar taagi doono oo aan dhalinyarta iyo haweenka mudnaanta siin doono pointka labaad ee aan ku ballan qaadayaa waxa weeye inaan ka shaqayn doono sidii garada biyo nadiif ay u heli lahayd iyo sidii daayartaas ay waxbarasho ku filan u heli lahayd oo tayale waxbarasho ku filan sidii dhalinyartaas u heli lahayd inaan ka shaqeeyo geed dheer iyo geed gaaban meel kasta oo aan u mari karna aan u maro aniga ujeedkaygu ma aha inaan adduunyo idiin soo doontay ma aha inaan adduunyo idinka shaqeeyo waa inaan idiin adeego ballanqaadka aygu waa Raan Maxamed Raan telefishinka caalamiga Real TV degmada Garad